wanaagsan ku soo dhawaada Salma Vlog and Entertainment. waxaan idin haynaa sheeko cajiib ah. abaal nin galaa badan nin gudaasa yar ayay Soomaalidu hore ugu mahmaaday. waxaana ararta sheekadan soo socota ay ka tarjumaysaa jisaarka dadka qaar ay sameeyaan marka la caawiyo oo mahadsanid xitaa aysan ku falcelin. waqti hore waxaa jirtay sheeko laga diiwaangeliyay gabar aragga naafo ka ahayd. waxa ay ka dhalatay qoys sabool ah oo aan waxba haysan, balse waxay dareemaysay inay haysato qof dariskooda ahaa oo aad u caawin jiray. qiimay nimcooyinka alle ku siiyey oo ha dayicin. waxa aad haysato laga yaabay inaad weyso hadhow oo aadan dib u helin. wiilkii gabadhaas aragga naafada ka ahayd caawin jiray ayaa dar Ilaahay u jeclaaday, markastana wehel dhow ayuu u ahaa. daruuf walba oo dunida ku soo wajahda waxay u baahan tahay samir iyo adkaysi, ileen wuxuusan qadarin Ilaahay ma dhacaane. gabadhii waxay karaasatay oo ay nacday nolosheeda camoolanimada darteed, balse waxay ilowday inaysan keli ahayn oo la dhinac joogay, la caawinayay oo wax walba ay u baahato loo keeni jiray, weliba fadhigeeda. balse waxay ilowday in caawinta intaas leeg qofka u sameynaya faa'iido doon inuu yahay in kale. nimco walba nusqaanteeda ayay leedahay ayaa hore loo yidhi. wiilkii ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu ku yidhi abbaaye ka waran haddii aan isguursanno, maadaama dad isfahmay, isku dhow, sheekaysta, darisna ah ay ahaayeen. ha yeeshee jawaab lama filaana ayaa ka soo baxday gabadhii iyadoo tidhi, haddii aan ifka dunida arki lahaa waan ku guursan lahaa, laakiin hadda maya. gabadhii ayaa sikadiisa maalin maalmaha ka mida cusbitaal looga soo wacay, waxaana loo sheegay in 2 indhood loogu deeqay qalliinkana ay u soo diyaargarowdo. waxa la fuliyey qalliinkii waana lagu guulaystay Ilaahay fadligii. gabadhii araggeedii ayay heshay, waxaana markan ay daawan kartaa waxa dunida koonkeeda la dul saaray. markaan dunida waa ay aragtaa, balse ma oga qofka indhaha ugu deeqay ruuxa uu yahay. ma aysan raadin qofka caawiye ee indhaha ugu yaboohay. wiilkii aadka u jeclaa ayaa saacado kadib u yimid oo ku yidhi, hadda wax walba waad aragtaa soo maaha? iyadiina waxay ku tidhi, haa waan arkaa. hore waxay gabadha u sheegtay markii wiilka yidhi maan isguursanno inay ugu jawaabtay, haddii aan dunida arki lahaa waan ku guursan lahaa. wiilkii ayaa mar kale haddana hordhigay, haddii aad hadda adduunka aad arkayso indha aad wax ku aragto heshay, waa inaan isguursanno soo maaha? sida laga soo xigtay dadka agdhowaa sheekada labada qof ka dhaxaysay, waxay sheegeen in gabadhii ay ku jawaabtay si quursi ku jiro, isla markaana iyadoo dhinaca wiilka fiirinaysa waxay aragtay inuusan isagana indhoolo ahaa oo waxba uusan arkin. waxayna ku tidhi, qof indhoole ama camoolo ah ma guursanayo. wuxuu ka tegay meeshii. wiilkii isagoo qalbi dilan, murugsan oo xaalad adagna wajahaya, kadib ayuu waraaqad u soo diray gabadhii ku jisaartay, ayna ku qornayd bashqadda uu soo diray wiilka, fadlan ii xafid oo ii ilaali indhahayga ayaa waxa ay yihiin kuwa aad hadda wax ku arkayse. sida gaari laalaan isha kugu haystaa. gudahanna intaasaynu ku soo gabagabaynaynaa sheekada Salma Vlog and Entertainment. waxay ka tarjumaysaa sheekadan jisaarka iyo dadka qaar siday u dhaqmaan. haddii aad wax ka fahantay sheekada, qaybta hoose commentiga noogu reeb wixii aad ka fahantay. waa anigu xasan xayi cabdulaahi oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo. doqa indhaa tiray mana aragto gabigo inta gabar wadale wala simana saga